aniga laftirkeyga waxoogaa yar way taabatay oo odaygii iyo reerkii maamadii iyo wixii oo dhan nin arday oo markaasi grade 7 iska oo hadda si maartay tukumayaan markii waxaa la yiri khalaas ninkii farahu ka baxay mar hadduu fan balwadayda yareed oo dadka qaadka iyo dadka sigaarka ilaahay hadda xabib midkoodna meey markii waxaa la ninka xarigiga goostay khalaas fan uu dhaxgalay waa ka u jeedaan xaaladiisii khalaas ayadoo runtii faa'iidana ilaahay meel yana xogaa yar oo waalidka xaqiisane oo si maartay oo baqdin ah oo reerka xaqayga ay soo gashay laakiin fankeyga badligiisa sidaas uu ku yimid kadibna waxaan ku dhiiraday inaan riwaayadihii la sameynayay macallimiintaydii inay dhiibaan oo heesaha riwaayadaha ee waxbarashada ka hadlaya horumarka ka hadlaya waxyaabaha saaqidnimada ee dhibka ay leedahay iyo dibjirnimada waxbarashada ma aragtay lidka ku ah kulli wixii marka dhiirigelin noqon kara ama xaafadaheeni tartankii kacaankii ubaxii wixii waxaan noqday haddana mawjadaasi ilaa akhiritaanka aan ku dhiirado أنا جامعة دجانا إلى هذا هيرجع حمر عن إماده هذا أبوان على ديري على جاب هذا ذاتك يقول قانون وهذا شنكرون أي كم تايو برني هذا كلو هذا النهر دجاري اللي هذا قرو شعايلي هذا بدنا أدوان إذا عدل لكن بدي ذاتك شنكرون بيئات ودجستان بدنا ما أي صار يبرني يكوا كله وحتى قاركوا العربي يعني inaan sidii markaas aan fanka inta jaamacadda dhiganayay intii u dhaxaysay iyo xilligaas inaan badaasi maartay ayadan aan sidaa ku soo dhex galo professor heestaadii Shankaroon oo runtii dadka wax badan ay isla dhex maraan xataa siyaabo kala duwan dadka ay u fasiraan bal heestaas taariikh ahaan inaan nooga sheekaysan jeclaan lahaa barnaamijka wallahi istaas waa shir way u badatay heesta horta abwaanka ayaa iskale أبغى على ديري على جاب أنا لحق يو ميوزك أيها وحى إلى بعضي هبيي مالك ترسن مثلا جيتار كبير بارسول كجلا يقول داود على مصحف عودك يو تونك لا قاعدة يو كل أنا إسكاله أبوانك أيانا مركو رئيس قصة أهان هست إسكا ayaa badi dadka maartay taariikhda wax kala socda heestaas waxa la yiraahdaa gabadh asaga uu qabay ayaa niman saaxiibadii waxay isku dayeen inay isku diraan labadooda sidii marka badi haweenka Soomaaliyeed badi fudayd go'aan ay ku qaadan jireen oo dadka hadda wax u sheegayaan dad ay isdhihi karto ay yihiin waarun ayaa waxay tiri ogama baran waxaad sheegaysaan wax kastaad sheegtaan waxa asiga yiraahdaan kaga kalsoonahay marka ha isdaalinin bas nimanka warkiibay sida uu ahaa intay u qaadeen saaxiibana way laahayeen abwaanke ay oo la tageen baa la yiri ayadoo goob marka ay firaashkana habeenka ay waxaan maran tahay oo bahalkii la wada qayilayo waxna la isdaafsanayo markaas waxaan isku daynaa halow in xaaskii maanta الحوار يا المسكحة تشويش أنك جلينا لكن من سوى جيدا أنا جايبه حارس نجلي سيبه أصلا حلقي بغير وكا مركب أبغاك أقوم هارين ماشى إسلام مركب هاستن أيوة دبر لي وليه هي مركب عشان هذا جاي يجي وقت كيما بيها شوبانية كوشكالن دول حولي أنشرة جلين وشيله وقارتي وشكل قبض كفيرها ميدا بشادر مذوي وشاش لجوهري أما شاهد دنيدي هذا أي دور شنجوك تعرفت هذا لهذا شنكرون هوين كايش وحاني رهدبا مريم كو شكريا يا شركان كامانا شادان كاتل ماما مركان يسلا شعور شيك يستكلي وعشان يتبجر شيخ وعاني للي شرط لقد دبولو لقد نهار شيدان مركا هايستا بالمناسبة isku day fanaan oo xooga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa oo Laylo la dhihi jiray ayaa habeen isku day inuu qaado aroos gobol markaasi aan ragiyaan fanka isla soo galnay oo runtii saaxiibkayga asigan maalifa Axmed Maxal Cabdi wasayna wala weyn oo aan wada joognay iyo abwaan hadda heesaha badi ee isagana classmate aan ahayno
cabdirasaaq jaamac muuse la yidhahdo heestaan hodan maha dhagare iyo shifa iska leh iyo raggii kale ee dhalinyarada ahaa ee markaasi habeen arooskaasi la wada joogo ayuu heestaa laylan ugu qaaday waxay ka xigay abwaanka marka reer Djibouti way hadda wuxuu ka tirsan yahay kooxda Jamda Amiga oo madaxtooyada oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waan halkaa marka lagu hambalyeynay in dadkiisa ay u doortaan oo nin fadha marka sidii baa isaga ciidamadii Djibouti loo diray ee dawladeena marka xilligaas ay ku caawintay walaalaha Djibouti ay kamid ahaayeen ragii asagana uu meesha ama uu kamid noqday aan ilaade marka heestii in muddo waxay ahayd hees dhex wareegta magaalada oo laakiin markii dambe waxa soo baxay dad magaca abwaanka xataa inay qariyaan maadaama Djibouti uu asaga u wareegay oo sheeganayaan ba arkay heestii aniga markii waan ogahay waxaana ragii asaga maanta ayagoo arday oo dugsiga hoose dhexe oo la weyn markaa heesaha uu si alifay xogtaasi ogaa heestii baan asagoonan fasaxata ka weydiisanin ilaan inuu asaga leeyahay baan ogahay aniga cid kale markaa ayaan dib u habeyn ku sameeyay watan heesaha hirgelay la soo istaagay oo kaalinta koowaad ku galay isagana markuu maqlay magaciisa iyo heestiisa anoo jaamacad dhiganay laakiin markaas oo aan ahay semesterka afraad oo aad ugu bogay marka uu yiri heestaydii nin jaamacad dhiganayo codkaana ku qaaday salaam laga gaarsiiyo oo ku sii dhiiraday heestii marka inaan ruqsan oo helay meel marna ay noqotay laakiin su'aashaada ayaa waxay ugu noqotay mid ugu soo noqotay dad fara badan ay yiraahdo aniga heestaada ayaa waxay ii noqotay midaan gabar xataa anaga aan jeclaa oo magacaas la inaan ku dajiyo oo iyada aan maartay xaaskayga oo aniga aan iyada maartay markay igu maartay yara xoogaa kacdo aan iraahdo maartay kelimadaha aan xusho waxa kan sida hadda markii dambe aniga waxay ila gaartay laftirkayga in anigan ay ugu xirto marka qoftaydii oo anigana lamaanahayga ay ahayd ilaan dad kala maanta ayaa gurigooda ku maslaxaysanaya aniga marka heestaa oo ayadana dareenkeeda ayadana mar waliba ay xambaarsaneed oo ayadana ay badanaa meelaha ayada laftirkeeda macrifadeena iyo soo dhawaashayna qayb ay ka ahayd ayaa maalin ka mid iyadoo ay la socoto marka marwadeedii ayaan waxaan tagnay jaamacad ku taala Khartoum oo arday Soomaaliyeed oo malaha dhowr kun ku dhawaad ayadoo anoo gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka say su'aalo roobka iga dhigayeen umba mid ka soo dhaxbaxay wuxuu yiri anigu siyaasadda ii dambeysay aniga fankan weydiinaya uu yiri iyo waliba hees an aad u jecelahay wax badan aniga laftirkayga xusuustayda ay maartay kula dhan tahay marka muxuu professorka marka gudoomiyuhu heestaasi maartay ay ku timid maxay maartay heestaasi ka turjumaysaa marka iyada ila socotay waxaan nahay inta istaagtay horta qablahan iyo jaamacadaha dhigta iyo raggan in soo wada dhaweynayo aniga kaliya la idaalin marta labada kelimado tuuro way istaagtay waxay tiri waan idin salaamaya hablahan si gaar ah wali wax maleynaya ay jaamiciinta hablaha Soomaaliyeed inay wax bartaan sharaf bay noo tahay halkiina ka sii wada waxaan jecelahay idinka mustaqbal fiican wadankiini iyo dalkiini iyo dadkiini iyo diintiini maartay kula soo laabta idinka xambaarsan bas halkii baan sheekadii waxaan ka dhex geliyaan inay ardayahay aniga kulli baarlamaan baan ku ababo waxaan iri wax kasta markii yara xoogaa ay anaga dad isku niraado maartay waro arintan in cod la geliyo maartay ayaa la isweydiyaa baan irahay oo maartay halkii majority-ga uu raaco marka kadib si loo yiraahdo waxa la isku raacay arinta waxaan heestaa ay weydiinaysan meel kale kama aan imaan qafta loo tiriyayna ma idinka foga caaw waxaan idinka rabaa way u qalantaa iyo uma qalanto markaas aan leeyahay waa tuma de waa yaa kala qofta idin soo hor istaagtay waa iska leh markaas aan saaxiib way u qalantaa markaas caaw laga bilaabay iska leh heesta ma gartay ayada markaas shankaroontaydii oo aniga hadda xilligani oo anigana aan ayadana oo la baxay heestaydana ma arday ii ansixiyeen reer jaamacadeed ee Suudaan ardaydoodii bal intaan ka bixin dhanka fanka waxaan jeclaan lahaa inaan dib ku xusuusiyo bal heestii saxlaaqi joogto kayma biyaha shuweeniyo ku shakaalan dooxo wali
shiraba gelin shaxdaagii joogto kayma biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiraba gelin شكال قبات كفيرها مذاب شادر مذويو شاش له هاريه وشلا وبورتيو شكال قبات كفيرها مذاب شادر مذويو شاش له هاريه وما الشاعد نديو أدعوش نجوك داد شارفتي ذليبي وما الشاعد نديو أدعوش نجوك داد شارفتي ذليبي شان كرون هاوينك عايشك وحاني رازبا مريان كوبو شغري شان كرون هاوينك عايشك وحاني رازبا مريان كوبو شغري شركانك أمانة شيطانك الماما شركانك أمانة شيطانك الماما مركياني سلا شوري شكي استكلي غي شركانك أمانة شيطانك الماما شركانك أمانة شيطانك الماما مركياني سلا شوري شكي استكلي غي وشاني يوتبنجر شيخ وعاني دلاي وشاني يوتبنجر شيخ وعاني دلاي شرط لقى دبولو لقنا اي شيطان وشاني يوتبنجر شيخ وعاني دلاي وشاني يوتبنجر شيخ وعاني دلاي